wardegdega daawadayaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo ballaaran waxa ay ka sameeyeen deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo ciidamadu ay jab xoogan ay gaarsiiyeen kooxda qawaarjay al-shabaab. Kala daawada askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo deegaano hoostaga degmada Kutuwaarey ee gobolka Shabeellaha Hoose kula dagaalamaya koox ka tirsan qawaarjay al-shabaab. وأسكري كترسن عيدن كحوجة دلك الصوماليات خاصة كوماندوسكا غرغر أيو كترسن يهاي ما أنت تولوين هوستك دقمدة كتواري قبل كشبه الله هوسة عيدن كحوجة دلك الصوماليات أيها وحى الدجال عذاب كل جلين كحاق قوارجها الشباب أسكري كان أيها أسكدوا بمقال استجوا الدجال لما إياه عرسنا كوحدة قوارجها الشباب دجال كيمانتو وهاد دجال حوجن ayaa waxa uu ka dhacay deegaano iyo tuulooyin hoostaga degmada Kutuwaarey ee gobolka Shabeellaha Hoose. Cutubyaad u tiro badan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay orjaha ka weerareen degmada Kutuwaarey iyo tuulooyin hoostaga waxaana halkaasi isku urursanayay kooxda qawaarjay al-shabaab. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka dul dhaceen koox ka tirsan nabadiidka kuwaas oo doonayay inay soo weeraraan fariisimo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin deegaano iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. saad muuqaaladeedan aad ku aragteen ciidanka ayaa gudaha hawdka degmada Kutuwaarey iyo dhanka jiinka webiga waxa ay ku cirsadeen koox ka tirsan qawaarjay al-shabaab kuwaas oo ku geel qalanayay deegaanadaasi iyadoo halkaasi ay ugu khudbeynayeen horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab. ciidanka oo hayay xogta kooxdan isku urursanaysa deegaano iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay ciidanku ku guuleysteen in duulaan rus ay ku qaadaan goobihii ay halkaasi kaga sugnaayeen waxaana dagaal qaatay 2 saacadood uu ka dhacay tuulooyin hoostaga degmada Kutuwaarey ee gobolka Shabeellaha Hoose. duhurnimadii maanta ilaa galab dhici ayuu dagaalka soo gaaray waxaana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka libin keeneen dagaalkii ay la galeen kooxaha qawaarjay al-shabaab. mid ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo xiriir la sameeyay ayaa wuxuu inoo xaqiijiyay in dagaalkii maanta in ay ku dileen 32 dhagar qabo oo ka tirsan nabadiidka al-shabaab waxayna gacanta ku soo dhigeen hub iyo sanado military oo ka careen qawaarijta. sarkaalkan oo magaciisa ka gaabsaday ayaa wuxuu inoo xaqiijiyay sidoo kale in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ay duulaan culus ku qaadeen goobo ay isku urursanayeen kooxaha qawaarjay al-shabaab. degmada Kutuwaarey iyo tuulooyin hoostaga ayuu waxa uu ahaa maanta dagaalkii ka dhacay dagaal aad culus. ciidanka ayaa hub iyo saanado military oo aad tiro badan waxa ay ka soo furteen kooxaha qawaarjay al-shabaab. mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa inoo xaqiijiyay in maanta ay maqlayeen hubinka madaaficda waaweyn iyo qoryaha darandooriga u dhacay isdhaafsanayeen labada dhinac
waxayna sheegeen in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay guud ahaanba la wareegeen gacan ku haynta tuulooyin hoostaga degmada Kutuwaarey ee gobolka Shabeellaha Hoose. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo hayay xogta koox isku urursanaysa tuulooyin hoostaga degmadaasi ay ciidanku waxa ay ku qaadeen dagaal culus oo 2 saacadood qaatay waxaana halkaasi lagu gaarsiiyay kooxaha khawaarijta ah jab xooggan. wararka ayaa sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay meesha ku guween gawaari dagaal oo ay lahaayeen kooxaha khawaarijta ee Al-Shabaab. saraakiisha ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyay in haatanba ay gaaf wareegayaan tuulooyin iyo deegaano hoostaga degmada Kutuwaarey waxaana saraakiishu xuseen in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dagaalkii maanta ay ka gaareen guul aad u sareeya. degmada Kutuwaarey iyo tuulooyinka ku dhow waxaa ka soconaya howlgallo ballaaran oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidankuna waxay dhowr deegaan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ay ka sameeyeen howlgallo ballaaran. markana haddaynu aadno isla Shabeellaha Hoose deegaano ka tirsan qaasatan tuulooyin hoostaga deegaanka Jilib Marka Gandarsho ilaa Dhanaane ayaa waxay wararku tibaaxayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkaasi ay ka sameeyeen howlgallo ballaaran oo lagu baacsanayay kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. howlgalkan maanta ka dhacay tuulooyin hoostaga degmada Gandarsho Dhanaane ilaa Jilib Marka waxaa si weyn iskaga kaashanayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo garabsanaya kuwa nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo ciidanka deegaanka loo yaqaan mootoleyda. waxayna ciidanku sidoo kale ama ciidanku ku garabsiinayay ciidanka Gorgor oo aad u tiro badan waxayna halkaasi tuulooyin hoos yimaada ay ka sameeyeen howlgallo culus oo lagu baadigoobayay kooxaha nabadiidka ah Al-Shabaab. mid ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo xiriir dhow la sameeyay kuna sugan deegaanka Dhanaane ayaa wuxuu inoo xaqiijiyay in maanta ay howlgallo ballaaran ciidanku halkaasi ay ka sameeyeen isagoo xusay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa deegaanka ay guud ahaan bacagta mariyeen koox ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab kuwaas oo ku dhuumaaleysanayay tuulooyin hoostaga deegaanka Dhanaane ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dhanaane haddaan sharaxaad idinkaga bixino waxa ay xiriirisaa wadada dheer ee xeebta Jazeera ilaa Marko waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkaasi ay ka wadaan howlgalka loo yaqaan duufaanta waxayna ciidanku maalmihii ugu dambeeyay ee gacanta ku dhigeen deegaano muhiim ah oo lagu tuhunsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan kooxaha khawaarijta ee Al-Shabaab. sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa deegaanka Dhanaane guri ku yaala waxa ay maanta ka soo qabteen hub aad u tiro badan iyo miinooyinka nooca loo yaqaan miinataangiga ama elta taangi waxaana halkaasi deganaa horjooga sare oo ka tirsan kooxda khawaarijta Al-Shabaab. ciidanka oo hayay xogta gurigan lagu ururinayay waxyaabaha qarxa ayay maanta waxay ku guuleysteen inay halkaasi ay ka soo bixiyaan guud ahaan waxyaabihii ku jiray waxayna ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaan mootoleyda ay ku guuleysteen in goobo hor leh ay ka xoreeyaan kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Shabeellaha Hoose waxaa si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maalmahanba ciidanku waxa ay deegaano hor leh ay ka sameeyeen howlgallo ballaaran oo dalka looga sifeynayo kooxaha khawaarijta ee Al-Shabaab. dhulka xeebta ay si weyn howlgallada uga socdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxa ay ka gaareen guul aad u sareeya. markana haddaynu aadno deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe khaasatan waayadanba waxaan si weyn ugu soo celcelinaynay deegaanka Jabadgodon ay ciidamadu howlgallo xooggan ay ka wadaan. duqeyn xooggan oo dhanka cirka ah ayaa waxay ka dhacday deegaanka Jabadgodon waxaana halkaasi lagu waxyeeleeyay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda nabadiidka Al-Shabaab. duqeynta oo ahayd mid cirka ah waxaa si weyn iskaga kaashanayay dowladda Soomaaliya iyo dowladaha dhanka cirka ka taageera ee arrimaha militariga waxaana duqeyntaasi lagu dilay ilaa 15 horjoogo ee ku tirsan nabadiidka Al-Shabaab. aan xogta ku heedno ama aan ka soo xiganayno ila ka agdhow meelahaasi waxay sheegayaan in halkaasi lagu dilay horjoogayaal dhowr ah oo ugu horeeyo madaxii amniyaadka ee gobolka Shabeellaha Hoose oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi oo magaciisu afgarashada uu ahaa Yuusuf. sidoo kale waxaa goobta lagu qaarijiyay nin lagu magacaabo Cabdullaahi Qaasim Cali oo isna ahaa madaxii jabhadaha ee gobolka Shabeellaha Dhexe afgarashadiisuna waxay ahayd ama loo yaqaanay magaca Mansoor. joogyaal kale ayaa sidoo kale goobta lagu laayay labadaas horjoogana waxay ahayn kuwii ugu sareeyay ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dabcan kaashanaya dadka deegaanka iyo diyaaradaha Soomaaliya dhanka cirka ka taageera ay si wada jir howlgalladaas ugu sameeyeen deegaano ka tirsan Jabadgodon oo hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe. Shabeellaha Dhexe waxay ka mid tahay goobaha sida weyn ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay howlgallada uga wadaan. Jabadgodon maalmahanba waxaa si xawli uga soconayay howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. wararka ayaa sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in ciidanku maanta ay dhowr difaac ay kala kaceen
kooxaha khawaarsi al-shabaabba sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay in guud ahaanba ay cagta mariyaan fariismadii nabadgelyada ay ku lahayn halkaasi shabeellaha dhexe waxaa si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxayna ciidanku howlgalladaasi ka gaareen guulo aad u sareeya nabadgelyada waxa ay ka mid tahay goobaha sida weyn maanta ciidamadu howlgallada ay uga sameeyeen waxaana halkaasi ka dhacday duqeyn xooggan oo lagu bartilmaameedsaday horjoogayaasha aynu soo sheegnay guud ahaan gobolada dalka waxaa si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamaduna waxay howlgalladaasi ka gaareen guulo aad u sareeya daawadayaal wixii ku soo kordhay howlgallada sida weyn uga soconaya guud ahaan gobolada dalka janalkeena galacda ayaad ka daawan doontaan fadlan hadduu janalku kugu cusub yahay subscribe inoo saar waa mahadsantihiin